aqoon la'aan, shaqo la'aan, faqiir caadaystay maandooriyaasha, maxbuus muddo 11 sannadood ah. Waxaa intaas ka sii daran inuu ahaa qof madow ah oo ku nool Mareykanka oo ay ka jirto cunsuriyad aad u xun. Dhammaan astaamahaas waxay ku kulmeen hal nin oo ah Clyde Beasley, ninkii u bedelay dhammaan dhibaatooyinkaas iyo cabashooyinkaas guul xad dhaaf ah. Bilowga noloshiisa wuxuu ahaa qof aan shaqo jeclayn, isagoo jeclaa inuu qaab fudud lacag ku helo. Waxa uu u noolaa sida ay u nool yihiin dhalinta reer Ameerika ee faqiiriinta ah. Wuxuu la socon jiray kooxaha burcadda iyo gaangiska ah ee ka ganacsada maandooriyaasha, waxayna kooxahaas dhacaan sidoo kale baabuurta si ay u helaan lacago ay ku gutaan baahiyahooda. Ugu dambeyntiina Clyde waa la xiray isagoo lagu soo qabtay fal dambiyeed, waxaana loo taxaabay xabsi ay ilaaladiisa aad u adag tahay oo ku yaala Mareykanka, waxaana lagu xukumay xabsi 11 sano ah. Halkaasna waxaa ku soo afjarmay nolosha iyo rajadii Clyde uu ku heli lahaa shaqo wanaagsan. Macnaha Mareykanka, haddii aad xabsi gasho waxaad weynaysaa fursaddii aad shaqo ku heli lahayd maalin un. Clyde wuxuu galay xabsiga, waxayna noloshiisa noqotay cunis, cabis iyo daawashada TV-ga, taasoo ay macnaheeda tahay nolol aanan lahayn haba yaraatee wax hadaf ah. Waxaana midaas ka sii daran inuu sidaas ku noolaan doono 11 sano. Bal qiyaas inta ay la eg tahay niyad-jabka uu kala kulmay Clyde nolosha noocaas ah. Wuxuu ahaa Clyde mid daawada TV-ga, gaar ahaanna ku tixnaa cayaaraha loo tabiyo sida tooska ah ee golfka. Maalinba maalinka ka dambeysa wuxuu ahaa mid daawada cayaartaas, wuxuuna cayaarta isku dhaafin jiray nolosha madow uu ku jiray. Mana jirin cayaar uusan daawanin, maxaa yeelay waxay ahayd arrinka kaliya ee uu ku iloobi karo dhibkiisa. Maalin maalmaha ka mid ah, sida caadada ahayd, Clyde asagoo daawanaya cayaarta, weliba cayaar aad u muhiim oo final ah, waxaa si kadis ah loo damiyey oo digniin la'aan ah korontadii. Sababo jabigii la xiriir awgood, Clyde aad ayuu uga carooday arrintan, isagoo bilaabay inuu laad ku qaado wax alla wixii hortiisa yaalay. Wuxuuna ku qaylinayay, maxay suurtagal u ahayn inaan ku raaxaysto daawashada shayga kaliya aan jeclahay. Waqtigaas ayay nolosha Clyde isku rogtay dhaqan kale, waxaana ku soo dhacday fikrad aad u wanaagsan. Wuxuu joojiyey qayladii, wuuna soo fariistay, wuxuuna soo qaatay qalin iyo buug, isagoo bilaabay inuu qoro fikradda ku soo dhacday. Haddaba maxay ahayd fikradda? Wuxuu go'aansaday inuu ikhtiraco cayaar cusub uu awood u leeyahay inuu meeshuu doono uu ku ciyaaro, iyadoo aynan saameyn ku yeelan doonin xaaladaha jawiga sida hadda Clyde ku dhacday oo kale markuu daawanayo cayaarta. Cayaartan ayaa ka kooban isku darka 2 ciyaarood oo kala ah ciyaarta golfka iyo ciyaarta bilyaardiga, wuxuuna ku magacaabay golf table ama golfigii miiska. Wuxuu bilaabay Clyde inuu sameeyo xeerarka iyo qaabka loo ciyaari lahaa cayaartan cusub. Wuxuu haystay 11 sano si uu u diyaariyo naqshadaha cayaarta, wuxuuna sanadahaas ku mashquulsanaa diyaarinta naqshado badan oo kala duwan, kuwaasoo ahaa qaabkii loo sameyn lahaa cayaartii golf table. Wuxuuna u sameeyey xeerar iyo qawaaniin u gaar ah. Kadib markii uu dhammaystay muddada xabsiga, ugu dambeyn waa laga soo daayay xabsiga. Clyde-kii ka soo baxay xabsiga waa uu ka duwanaa Clyde-kii galay xabsiga. Markuu xaafadiisa tagay durbadiiba, wuxuu bilaabay inuu ka fikiro sidii uu ugu bedeli lahaa fikraddiisa iyo riyadiisa qaab xaqiiqo ah oo la taaban karo. Wuxuu tagay meel lagu iibiyo biraha iyo agabka cayaaraha ee qadiimiga ah, isagoo gacanta ku watay warqado ay ku qoran yihiin dhammaan naqshadihii uu sawiray intuu ku jiray xabsiga. Kadib markii uu soo iibsaday dhammaan waxyaabaha uu u baahnaa Clyde, bal sawiro waxa uu ku soo bixiyay kaliya $60. Waa lacag aad u yar runtii marka loo eego fikraddan uu rabo inuu fuliyo, waana tan u bedeli doonta mid ka mid ah milyaneerada adduunka
iyo mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya ciyaaraha Mareykanka. Wuxuuna awooday inuu sameeyo naqshadiisa koowaad ee ciyaarta golf table. Markan ciyaarta waa diyaar, waxay u baahan tahay kaliya cid tijaabisa. Wuxuuna u yeeray dhalinyarada xaafadda ee dariska la ah si ay u tijaabiyaan ciyaarta. Run ahaantii waxay ahayd mid ay ku raaxaysteen, wayna la yaabeen qaabka cajiibka ah ay u samaysnayd ciyaarta. Ku raaxaysiga ay dhalinyaradan ku raaxaysteen ciyaarta waxay Clyde ku riixday inuu horumariyo, uu suuq geeyo ciyaarta, uuna soo bandhigo ciyaartiisa. Wuxuu go'aansaday Clyde inuu raadiyo habkii uu u suuq geyn lahaa ciyaartiisa. Laakiin nasiib xumo ma uusan haysan lacag kale, waxaana qasab ku noqotay Clyde Beasley inuu lacag deyn ah ka raadsado asxaabtiisa iyo qaraabadiisa, balse nasiib xumo ma uusan helin wax lacag siiya ama deymiya. Kadib wuxuu bilaabay inuu geeyo ciyaartiisa meelaha uu u arkayay inuu ku soo bandhigi karo ciyaarta iyo kalaabyada ciyaaraha bilyaardiga, balse nasiib xumo ma jirin cid danaynaysay ciyaartiisa. Meelaha qaarna loomaba ogolayn inuu galo oo uu ku soo bandhigo ciyaarta. Maalin maalmaha ka mid ah, sidii caadada u ahayd, Clyde wuxuu soo galay mid ka mid ah goobaha ganacsiga isagoo raadinaya maamulaha shirkadda si uu ugu soo bandhigo fikradda ciyaartiisa. Kadib Clyde wuxuu la kulmay maamulihii, wuxuuna u soo bandhigay fikraddiisa. Clyde wuxuu filanayay in la burin doono, balse ma aysan dhicin sidaa, oo maamulahan wuu ka duwanaa kuwii hore. Wuxuu la dhacay fikradda Clyde, wuuna soo dhaweeyay, wuxuuna u sheegay inuu fikraddiisan ku soo bandhigo bandhigga sanadlaha ciyaaraha bilyaardiga ee lagu qabto magaalada Las Vegas. Sanadkii 2003 wuxuu qaatay Clyde waanadii uu u soo jeediyay maamulihii, wuxuuna ka qayb qaatay bandhiggii sanadlaha ahaa. Dhab ahaantiina waxay qancisay fikradda qaar badan oo ka mid ah kasoo qaybgalayaasha bandhigga, qaarkoodna ay ahaayeen kuwo maalgeliya ciyaaraha. Meeshii loogu talagalay Clyde inuu ku soo bandhigo fikraddiisa iyo goobtiisa ciyaarta ma ahayn mid firaaqo ah, qof walbana wuxuu doonayay inuu tijaabiyo ciyaartan cajiibka ah. Run ahaantii ciyaartiisa waxay soo jiidatay dad badan oo goobta joogay, ilaa heer ay gaartay inay maalgeliyaasha qaarkood u soo bandhigaan Clyde inay maalgelin doonaan ciyaartiisa, weliba ay ku soo bandhigi doonaan dhammaan meelaha lagu ciyaaro ee Mareykanka. Sanadkii 2005 waxay ciyaarta ku faaftay Mareykanka iyo dhammaan caalamka, waxayna noqotay ciyaar aad loo jeclaaday. Clyde ma uusan samayn miis kaliya, ee wuxuu sameeyay ciyaar dhammaystiran oo ay u dhantahay xeerarkeeda, taasoo ay suurtagal tahay inuu ka samayn doono mustaqbalka malaayiin dollar. Sanadkii koowaad ee ciyaarta, faa'iidada saafiga ah ee ciyaartan, iyadoo aysan ku jirin lacagtii ay dul saarteen shirkaddii maalgelisay ciyaarta, waxay noqotay lacag gaaraysa $5 milyan. Wuxuu noqday Clyde Beasley nin milyaneer ah oo ganacsade oo caan ah. Qisadan runtii waa qiso qurux badan, waxayna tusaale cad u tahay in qofka xaalad walba oo adag uu ku jiro aysan ahayn macnaheeda inuu mustaqbalkiisana sidaas ahaan doono. Haddii aad ka heshay qisadan iyo muuqaalka, like saar, siina share garee, subscribe saar channelka, gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelino. Mahadsanidin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.